بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادي يوتيوب كعالم تكنولوجي واحد كلو نقص عن ختان برتان كلنا فيسبوك شافي أحمد عالم وحي سؤال واحد نقص دوري كختان عالم info@gmail.com وحي سؤال واحد وحي سؤال قسم إن شاء الله وكسور عين دونا واحد كلو فرهين نوري كختان نعي انستغرام كل سكريبشن ده اللي خدقه أن كريم دونا عشرة ما تيجي هيا وعشرة دي كوساب سنة system ethical certified ethical hacking كوساب سنة عشرة هرو ethical hacking السوارقني خارج عصي وفربضنا على ذي كيمي وحوها قاب كله قطوبه كالي لاينكس إن شاء الله ما انتهى بيجنا ده على كرديكو طبعا ما انتهى حكي تونا قاب كinstallation لغو سمي كالي لاينكس قاب كله قطوبه إن شاء الله سلاك تونا وي marka hore kan waa computer waxa ku jira Windows 10 baa ku jira si aad ugu shubato Windows Kali Linux aad ugu shubato any operating system sida Windows 7 sida tusaalahan kale Windows Catalina Apple aad ugu shubato tusaalahan kale Kali Linux CentOS Unix aad ugu shubato waxaad u baahan tahay computer kan inaad isticmaasho application virtual oo aad ku kala qaybsan karto way farabadan virtual waxa kamid ah application loo yaqaan Hyper-V baa kamid ah oo insha Allah cashkiisi aan diyaariyay upload uu haray oo cashkiisi kal hore aad u fogaan diyaariyay oo cashirkaasi aan si markaa munaasab ma aha aan hakiyay laakiin insha Allah waan channel soo gelin doono marka waxyaabaha lagu soo kamid ah loo yaqaano Hyper-V baa kamid ah Hyper-V oo la soo active gareynayo inta la ku qoro Hyper-V aan search ka baaro Hyper-V manager imika aniga active baan u hay imika wataan off buu yahay insha Allah cashirka ka hor doonta qaabka loo gareeyo Hyper-V kuma waa mid built in marka waxaad ku shuban kartaa maxay operating system kala computer ku shuban kartaa kuwa aan kala kamid ah virtual box mid loo yaqaano inta hadana laga sii baxayo laakiin ka lagu isticmaalka badan loo yaqaan VM workstation Pro ayaa loo yaqaan waa ka lagu isticmaalka badan application kale waxaana ku fiican runtii dhinaca speedka iyo xawaaraha laakiin application kaas wuxuu kamid yahay kuwa ugu fiican ama virtual ugu fiican ee la isticmaalo kamid وهيبر فيه ورنتي عوايز بالماضي بكرة لكن كاس فيرتشوال فين بوك ستيشن بروداسي آدي بو في عين كم واحد كلا سودي كرتا بكيش آد بو في هاي واحد كلا سودي كرتا ويب سايت كان لو يقانو get into PC هل كايم كاتن كو قرنو في وير بوك ستيشن طالب كلا كو قرو قان ترسيو هل كان هو صوحي نو صوب حي سمحي عن سراو كو سوديغو waxay la soo baxaysaa aad aragtaa VM Workstation Pro 2020 ka kaasad waxa ka sameynaysaa download waka qaabkaas u soo bixi doona soo kicin doona marka waa download box waa download box doonta how to install the software website kan ayaa leh marka soo video good video ku hagaya qaabka lagu duuday marka waxa ku leeyahay before installing software you must watch this installation good video qabiyo wayna daawata marka marka soo dhoon qareyso aad ka shubto waa nagasti halkan ku imanaya oo ku soo fadhiisanaya marka soo kicinaya ay kala u baahanahay marka in kan helo waxaan u baahanahay kale qaar waxaan u baahanahay ISO ama Kali Linux ka ku shubi lahayd marka imika hadaan ku qorno Kali Linux waa la fikiis wakiil karna waxaad aragtaa halkan imika Kali Linux waan ka helay hadana ku sii dhufto interface-kiisa aan doonay inaan arko waa kan waa interface-ka noocaas ah qaybka inuu kan ma isticmaalayno waa shabakadan baa soo geliyay marka inuu ka mid doonay hadda inaan isticmaalo waxaan doonayaa kii sax ah shirkadda inaan isticmaalo waxa leenahay Google baan tagayaa waxaan ku qornaa Kali Linux download baan leeyahay waxaan ku dhufanaa link u sareeya halka waxaad tagtaa www.kali.org waa shabakada magaceedii waxaan ku dhufanaa marka waxaan soo dhawgareynaa ka sareeya Kali Linux 64 bit hadda doonaysid ama bitka doonaysid ayaa soo dhawgareysanaysaa marka imkaasna ku dhufanaa kiligimka hadan siiyo download ba ku dhacay hadan kilig siiyo uu soo dhawgareynaa marka qayb waxaad aragtaa halkan ka socda Kali Linux uu ku dhamaanaya marka waxaad aragtaa xajmigiisu waa 4GB weeye ma yara waqti badan buu qaadanaya qaybkan uu igu jiray waxba waqti badan iska lumin uu igu jiray ka maxaan sameynayaa halkii igu jira aniga waa ka bartay yaala work software iska halkan ku jira ISO marka aniga halkan igu jira waa ka Kali Linux 2020.4 installer oo ka ku jira
qabulan ku duubi doonaa sida daba lagu duubaa halkan imka haddaan imaado kan iska xidho ma baahni kan iga xidho ma baahni way saa marka kusoo kaco waxaan doonayaa inaan sameeyo new virtual inaan sameeyaan u baahanahay marka waxaan tegayaa halkan waxaan ku dhufaa aragtaa create new virtual ama waxaad tegi kartaa file waxaad tegi kartaa new virtual machine waa isku mid labada qaab kii aad u dhigtaa waa isku qaabkaan ka isticmaalay oo isu tegaysaa ku dhufo wuu soo socdaa imika waxaad aragtaa markaa ka u horey waxaad dooranaysaa customly waxaad leedahay negasty halkan waxaad leedahay negasty halkan waxaan kasii dooranaynaa I will install the operating system later waxa weeye operating systemka hadhow baan ku sheegi doonaa halka uu yaallo ama hadhow baan kusoo attach gareyn doonaa marka imikaasna iska dooranaa dhinacu saaran tahay negasty baan leeyahay distribute-ka waxaan dooranaynaa Linux baan dooranaynaa halkan waxaan ka dooranaynaa CentOS ma dooranayno waxaan u baahannahay Kali marka waxaan Kali waxay dooranaynaa Debian bay dooranaynaa waxaan dooranaynaa Debian version-ka u dambeeyaan dooranaynaa marka Debian kaas u dambeeya kaasaan dooranay marka waa Debian ku mid yahay Linux waxaan leeyahay Debian Linux baan leeyahay marka maxaad u bixinaysaa marka halka waxaan u bixinaynaa Kali Linux أنا مدهر يقول شو المقعد عن لين هاي 2021 أنت خبر كان صوص بيو أيها حلين نغستي هل كان كل بروسيسور كإنتي اللي وش أصيان يسا وحلين هل كودا كودا هل كان كل ماكسيموم رام أضوء شيء محمد دام واللي هاي لينكس هنتي كالي والبيئة هاي وحافي عن رام دورات سيسو مركا صدح رام وحافي عن 6 جي بي رام أتصيص أقرح بدن كان 6 جي بي waxaan leenahay 3 kun baa iska dhe waxyar baa dheer laakiin 3 kun baa iska dhe inta markaan soo sameeyo waxaan leenahay negasty halkan waxaan ka dooranaynaa waa network bridge ka dhigaysaa ma net bad ka dhigaysaa imika netkaas ma diinaya hadhow hadii baynu bedeli doonaa bridge ka dhigan doonaa hadaynu isku xidhayno sameynayno halkan waxaan leenahay negasty way halkan waxaan leenahay kuma dhow waxaan leenahay negasty waxaan leenahay create new virtual machine on diski waxaan leenahay negasty diskigan sheegaynaa 20 GB buu leeyahay laakiin waxaan siinayaa 50 GB hadba wixii ka go'aadsiinaysaa waxaan leenahay markaa store virtual as a single file kaana dooro negasty de qaybta ku leeyahay Kali Linux 2020 sumadiisa ay tahay VMDK astaantiisa ma doonaysaa in ugu dambeyn aad naqastaa waxaan leenahay negasty finish maxay wuxuu ku siinay macluumaadka detail la soo dooratay ku siinayaa magacaad soo bixisay location-ka version-ka operating system-ka soo dooratay hard disk-ga macluumaadkiisa ku siinaa waxa la finish way inta markaa lagu soo dooro ayaa waxaan u baahanahay inaan soo attach gareeyo ISO-dii taasi aan u attach gareeyo waxaan tegaynaa VM waxaan tegaynaa settings kan tegayaa oo ay sidoo kusoo dhijinaya waxaan tegaynaa halka ku taala CD and DVD waxaan leenahay use ISO waxaan leenahay browse soo dooro ISO-dii hadda aan soo dejiyay hore soo dejiyay adigu sugaysaa inta ku soo degayso halkan igu jirto waxaan leenahay ISO waa kan 2020 waa kan waxaan leenahay okay way saamaxa okay inuu yiraahdo ayaa in waxaan leenahay power on virtual machine hadaba shid waan kusoo tijgriyay hadaba shidaya power on ma sameeyo shiday way sana soo baxaysa waxa ku leeyahay install graphical install advanced hadda waxaan ka dooranaa halka ku taalo install graphic marka waxaan areadan isticmaalayaa waxaan takaasin dultiga waxaan leenahay enter yar buu qaadan xogaaba diirshigiisa ka socdana inta iska ka socda waxaan leenahay control J waa kaani huri ugu jira waxaan leenahay cancel uma baahni iska cancel waa inoo soo laab waa inoo soo kacaya way samarku soo kaco وكذا اللغة الدورة اللغة واحد دورنا إنجليش وحلينا هاي الشغل بينا دورة continue بان ليه هاي قدر حلينا نغستي أمريكان سيل نغستي أنت سوى نغستي أنتي نسولش حاجة تنبو إير كير هول بدناني لكن تنهورات بياد بفضوضة detecting
an amount installation media soo qaban detecting soo qabsanaya la leeyahay ajiliya xayawaan cas ku jira ee hard drive isku soo qabsanaya marka project-kii hore keen ku isticmaal jiray waxa ka Linux kana waxnu bixin kan Linux 2021 ka kana waa distribute kamid ah kuwa hadda lagu isticmaalka badan yahay Linux oo CentOS loo yaqaano wuxuu muhiimad u weyn runtii هذا هذا detector wuxuu sameeyaa hardware key network ay ku sameeyaa xogaa u qaadanaya way hadda waxaad aragtaa wuxuu leeyahay host name sameeye ka host name ka waxaan ka dhigi doonaa kali line naga span leenahay host name ka Linux continue oo ku sheegaya domain name sameeyay marka imika hadda wax domain name oo inoo sameeyay ma jiro domain name ma haysano marka hadaynu haysto isticmaalta laakiin hadda aan u baahaysan domain name haysano waxa leeyahay continue oo ka soconaya halka waxa ku leeyahay username ka ay geli marka waxaan gelinayaa magacayga waxaan leenahay Shafici magacayga gelinayaa username kayga hadhow kana ku geli doonaa marka meel ku qorkaas waa muhiim hadhow tula kaasi ku gelaysa waxa leenahay nagasti wuxuu your account hada ka soo noqon doona magacaas yeelanaya account-kaas ku galisa magaciisa aan nagasti ka password fiican baad samaysanaysaa imkaan password baan gelinaya halka waxaan leenahay password baan geliyay hadaan tusano waka mid ka mar labaad baan u celinaya waxaan leenahay password waka inta markaa waxaan leenahay continue qaybka saacadii detecting saacadii CTX saacad tagaya saxaya saacad waxa iska dooranaa string ka iska dooranaa adhow iska bedelayna waxa weeyaan waa time zone-kii way halka markuu soo dooro waxaan dooran doonaa use internet disk baan leeyahay hard disk ku jirtaan doonayaan lagu shubo kaasina ka sii dooranaa iskaas ku siidaa waxaan leenahay ku siidaa waxaan leenahay continue halka wuxuu ku sheegayaa if you continue waxa imka hadalata partition-kiiba ku soo aqriya waxaan leenahay yes ajiladi buu ku sameeyaa waxay imka storage-ku bilaabay qayb storage wuxuu qaadanayaa xogaa waqti uu qaadanaya qayb storage-ka wax allaaleen ku xaan soo sheegnay markuu saxay halkan uu soo gaaray waxa muhiimad weyn leh halka kale runtii caqabad yar oo aad yar kooban oo ardaygu hadduu hal wada sameeyo oo file garoobiyo dhamaan storage-ka insha Allah usla arki doono marka kan xogaa baynu yar sugaynaa inta uu dhameynayo installation base-ka installation the base system inta uu dhameynayo ayaan xogaa sugaynaa waxaan isku soo noqonaynaa marka hadda la ka dhigo dhameeyo ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah way hadda waxaad aragtaa wuxuu dhameeyay installation-kii waa dhameeyay ka halkan inta waxaad u deynsanaysaa desktop-ka iyo XFCE-ga iyo collection-ka iyo top-ka intaas ay diisay laakiin kuwan kale ma saxayst waayo kuwan kale large waxa ku jira operational tools xoog badan baa ku jira oo kuwii lagu garan karay laakiin kan laftigiisu ma sahlana waxa la inta u daa toolka inta ay saxsan continue dhe ka uu sii wadaya installation-kii wali uu sii wadaya tiibaan ku shubaabo ku leeyahay toolka intaas leeyahay ku shub nagasto sii wada inta nabar ku dhameeyo isku soo laaban way saas kale marka uu soo baxo installation-ka uu socday waxa filayaa wuxuu qaatay 40 bir buu qaatay ayaa filayaa meelaha qaybka waxaan dooranaynaa yes baan dooranaa waxa leenahay continue halka ardaydu ay qaldaan waa halka enter device manually hadda halka doorato installation-ka fail garoobay kan hoose dooro continue installation-kii saas ku meel maraya kaasa u dambeeya xogaa yar buu wadaya finish installation buu sameynaya marka waxaan sameeyay hadda gudihii baan u galnaa marka gudihii baan u galnaa finish buu sameynaya continue report buu sameynaya halkan wuxuu sameynaya okay buu soo qoray macna okay weeyaan hawsha oo dhan ama okay marka xogaa yar suuynaa inta uu soo kacay oo dib u soo kacay marka way hadda waxa la xitaa installation-kii weel waa dhamaaday hadda wuxuu ku leeyahay gudaha marka gudaha waxaan ku qorayaa magacayga lagu soo bixiyay oo saaha iyo password-kiisu hadda caqabe inta baan khalay qaybku uu geenayaa isagoo siiruyo oo waxba aan ku jirin oo hal tuulaan ku jirin
kabal gudihii aynu aragno marka way hadda waxaad aragtaa waa kan installation oo ku sameynay Linux-kii ka inta yar ee ugu hawsha badan leh waa intii yarayd ee ardaygu hadduu halka maalin waliga doorto oo fiiska dooran waayo in guud ahaan bay noqonayso file group iyo installation qaabdalka aad ugu fiirsadaan dab waxaad aragtaa meeshan wax kuma jiraan waa home directory waa file system-ki waa crash-ki waa trash-ki oo reserve bank kalkana toolski built-in-ka ahaa baa ku jira ka wax imka application kuma jiro ka waxaan filayaa casharkaas inuu yahay cashar aad iyo aad u muhiim ah oo ku saabsan qaabka lagu duubo oo lagu shubo installation lagu sameeyo Kali Linux wixii su'aalaha waxaad ugu soo diri kartaan cali@gmail.com iyo Instagram ku description-ka ku dhigi doono. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.